ereyada aad ku hadlaysaa keliya waa in ay laba u noqdaan kuwa lagugu dhibsado oo la iskaga kaa fogeeyo, iyo in ay noqdaan kuwo sabab u noqda in aad qasriya ku yeelato quluubta dadka. Ha ka falcelin dhibaatada dadka, waayo nusqaan mooye wax kale kuma soo jiidayso. Ka dheerow waxyaabaha hoos u dhigaya sumcadaada, waayo sumcadda aad bulshada ku dhex leedahay oo dhimataa waxa ay la mid tahay qiimahaaga oo yaraada. Laba qof oo keliya ayaa awood u leh inay xaqiiqada kuu sheegaan: 1. Cadow aad u xanaaqsan oo aanan hadalkiisa kantarooli karin. 2. Iyo saaxiib si dhab ah kuu jecel. Ha raadin qof dhammaystiran, waayo ma jiro qof dhammaystiran, duniduna ma dhammaystirna. Raadi qof noloshaada dhammaystiri kara. Qofka caqliga badan qalad marka uu galo waa uu ka soo laabtaa, raaligelinna waa uu ka lifaaqaa. Si kasta oo xaalku yahay, xiriir waliba hadduuna ixtiraam uuna ku jirin ma sii socon karayo, waayo wax bilaa ixtiraam ahiba ma jiraan.